ويا رب الله يسرده بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما مهده ما تسوك كراي شيدني ليدا قلو يروح شلي دعي إلهينا من عديث هاينو وضو وأبراه نيسو شمي دعاك هدب آديات بانكم هذا قيناه dadweynaha reer jiidani soo dhaweynta iyo xamaasada iyo soo kalgacalka wanaagsan ee soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa magaalada jiidani magaceeda waxaan xusuustaa markaan maqlaba dhowr nin xisbiga kulmiye iyo calanka haystaan ee maanta madaxweynaha Soomaaliland soo saaray ee xisbiga xaakimka ah labadii qof ee ugu horeeyay ama saddex waxa abuuray dad aqoonyahana oo aad aqoonaya siyaasadba u leh oo aan tiro badnayn oo farakutinaysa oo reer Somaliland oo uu hormood ka ahaa Maxamed Saalax Nuur Fagaare hindisihiisa calaamadihiisa calankiisa dastuurkiisa qaab dhismeedkiisa iyo falsafadiisa waxaan isleeyahay Fagaare cidlo kaba badsanin intii uu soo jeeday iyo intuu qoraal ka waday iyo intuu ka doodayay muddooyin baa ahayd intaan magaca iyo xisbiga loo waday marka waxaan leeyahay halkana waa xaruntii deegaankii Fagaare waana deegaankii kulmiye waayo kulmiye waa uradkii Fagaare waxaa kaloo jiiraan ku xuseynaa Yaasiin Xaaji Nuur oo isagoo dhalinyaro ah ka mid noqday asaasayaashii iyo halgamayaashii SNM oo in badan dibjirnimo iyo gaajo iyo dhibaato iyo rafaad maray Yaasiin ilaahay ma qadarin inuu ka qayb galo in badan Somaliland iyadoo weli dagaalkii socdo ayuu shabaab ku dhintay Allah ha u naxariisto labadoodaba waxaan u xusanaa halganka ay ka soo qayb qaateen ee maanta Somaliland oo dhammi hoos harsanayso iyo in badan oo kalaba waxay intay Allah ha u naxariisto maanta waxaan u soconaa oo halkan maraynaa waan dadka ku dadaalna marka hore dad salaamay ilaahay laga yaabo meel joognaba waxaanu qabanaa ilaahay aanu qabanno qodobka labaadna waxa weeye waxaanu doonaynaa wixii u dana dadkeena iyo diinteena in dadkeena wanaajina dhexdooda oo islaax ka abuuro nabad ka abuuro oo isfahan ka abuuro oo dadku wada yeesho oo qoqobka uu ka baxo oo dad Soomaaliland oo is-aaminsan oo wax wada qabsado oo meel booday kala oo dhibaatooyinka wada baxa waa fariinta koowaad ee sidoo fariinta labaadna waxa weeye abaaro badan baa dhacay oo haweeney iyo cimiladu isbedeshay xoolihii si ay u noolaan jireen uma noolaado dhulku waa abaaroobay waxaynu u baahanahay fikir iyo caqli sida aynu ka lahayna aynu ugu abuuro xoga soo bixinayn oo mustaqbalka da'deena yana maanta nool iyo kuwa soo socdana xagu soo lahayn haddii dhulka dhirtii iyo daaqi yaraado waxa hubaala dhulkan in ilaahay macdano badan bedrool iyo macdan kale badan ay ku jiraan oo nibad khayraad leeyahay oo haddii aynu isku tashano oo aynu gacmaha isqabsano oo aynu ka baxno maaragtay is-aaminaanta iyo qabyaaladda iyo kalayaha aynu ka baxno waxa hubaala inaynu aayatiin badan iyo adduunyo badan iyo dhaxal badan samaysan karno taasina waa fariin labaade aynu dalkeena aamino waxna wada qabsano waa fariinta labaadana ku siido tasaxaadana ku siido waxa weeye sidee taa loo gaarayaa oo dadka seela isugu ururaya dadku waa inay axsaabta kala galaan oo ay fikrada ku doortaan ciday dooranayaan marka inagu waxaynu dooranaynaa oo aynu dhisaynaa fikradii iyo dhaxalkii iyo caqliyadii aqoontii ay Fagaare iyo Siiraaye iyo raggii xisbigan abuuray ay dhisteen ay dejiyeen fulinteedana raacaynaa marka xisbigan raacaynaa waa kulmiye isagana noo codeynaa sababtaas aynu codeynaa aad iyo aad waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.